السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان خيرتها شرفت له ملك سو جوجتان سو دواده waxaan doonaynaa insha Allah halkan in aan kaga hadalno xaaladihii u dambeeyay dagaalka ka socdo Garbaciise u dhaxeeyo Canfarta iyo Soomaalida iyo waliba dagaaladii ugu dambeeyay lagu jiray kooxihii TPLF waliba ku dhow maanta in ay mataqaanay ay qabsadaan magaalooyin waaweyn oo ay leeyihiin ahmaaradu wararkaasi iyo kuwa kale ayaan insha Allah halkan idinku soo gudbin doonaa. haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe like saaro si markasta oo la socoto xaaladihii u dambeeyay ee dalka Itoobiya. warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaalada u dhaxeeyo Canfarta iyo Soomaalida. dagaalkaasi oo maalmihii u dambeeyayba ka socday aaga Garbaciise maalinkii shalay ahaana halkaasi dagaal weyn oo ka qarxay ay u suurta gashay in Soomaalida dhibaato aad u weyn mataqaan loo soo gaarsiiyo waliba la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen dad kor u dhaafay ama gaaraya 400 oo ruux oo Soomaali ah. waa arrin aad iyo aad mataqaanay looga xumaado. dagaalkana wali waa uu socdaa waana uu xoogaystay. markii arrintaasi ay dhacday waliba halkaasi ay ka dhacday saqiir gowrac iyo in dumarkii iyo caruurtii la kala saari waayay dadkii dagaalayay intaba ayaa waxa dhacday in dadkii deegaanka ay is abaabuleen Garbaciise magaalada kadibna dagaal saf ballaaran ah ay la galeen Canfarti halkaasi oo maanta ay jab aad u weyn ay ku gaarsiiyeen. magaaladan Garbaciise ayaa waxa ay ku taala ama ay isku xirtaa wadada weyn ee u dhaxeyso Djibouti iyo Itoobiya. maalintii shalay ahayd ayay mataqaanay ahayd markii dad badan oo careysan oo deegaanka ah waliba Resiti ay matana wadadaasi ay gooyeen taasi oo khalkhal gelisay amniga iyo dhaqaalaha dalka Itoobiya. dagaalka ayaa sii xoogaysanaya. dagaalkana waxa uu ka socdaa waa duleedka Garbaciise weey. waliba dadkii deegaanka oo waliba xoolo dhaqato ah ayaa mataqaanay aad yaa u dagaalayo doonayana in ay iska celiyaan Canfarti halkaasi oo waliba ay guulo waaweyn oo la taaban karo ay ka soo hooyeen. ila ku dhow ama ila mataqaanay aan la xiriirnay ayaa waxa ay noo sheegeen in laga maqlayo magaalooyinka u dhow halka iyada risaas waaweyn hubka noociisa kala duwan oo la isku adeegsanayo oo halkaasi ka socda in ay maqlayeen. taasi oo ah in dadkii hadda ay baraarugeen ayna doonayaan in ay iska celiyaan Canfarta iyo dadka kale ee mataqaanay la socdo. dagaalka ayaa waxa la sheegay in ay ka dambeysay TPLF iyada oo waliba doonayso inay isku jabiso Soomaalida iyo Canfarta maadaama dagaal kale uu kaga socdo dhanka Itoobiya. waliba hadii dagaalkan furintan kale aysan furina ay heli lahaayeen in Soomaalida iyo Canfartu labaduba iyagu garabsanayo in ay dagaal ay ku qaadi lahaayeen TPLF. laakiin hadda markii la arkay in Soomaali loo diray gobolka Ahmaarada ay doonayaan halkaas in difaac ay ka galaan ama ay la dagaalaan TPLF yaa waxa la abuuray in dagaal kale lagu furo si dowladda deegaanka ciidanka ka imaanaya ee Liyo Booliska aysan u helin in mataqaanay ay hiil iyo ho ay la garab istaagaan Ahmaaradu. mar ay mataqaanay uu hadlayay wasiir ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaaliya ama wasiirka warfaafinta wasiir ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaaliya warfaafinta ayaa waxa uu yiri waa Maxamed Roble waxa uu sheegay in dadka halkaas ku dhintay ay gaarayeen ilaa 350 ilaa 400 oo qof oo dhimasho ah yaa mataqaanay ayuu sheegay. waxa kale uu raaciyay in dadka Resiti in ay difaacayaan ay mataqaanay difaacana ay muqaddas ay tahay taasina ay ka go'an tahay. waxa kale uu sheegay in ciidanka Liyo Booliska in halkaasi loo diri doono oo dagaalna ay la gali doonaan Canfarta inkasta oo warar kale oo ay sheegayaan in ilaa hadda aysan Liyo Booliska ay arrintaasi aysan gelin in badan oo dadkana ay ku ceebeynayaan leeyihiin Liyo Booliska waxay mataqaanay ay difaacayaan Ahmaaro dadkii Soomaalida ahaa ee waajib ka saarnaan ma difaacayaan. marka dagaalkaasi iyo insha Allah wixii ka soo baxana halkan baan idin kula wadaagi doonaa. hadda meel khatar ayuu marayaa. Soomaalidu way awoolan tahay dagaalka way wada galeen. waxaan sugaynaa in Soomaalida kale ee mataqaanay u dhow deegaanadaas igana inay si xoog leh oo qayb qaadan doonaan iskana celin doonaan dadka duulaanka ku ah. haddii aynu eegno dhanka kale dagaalka TPLF mataqaanay ka socday dhawaanahan deegaanada ku dhow Ahmaaradu
ayaa waxa ka soo baxay iyaga lafteeda wariye ka tirsan TV-ga Easter TV ayaa mataqaanaa xog muhiim ah oo banaanka u keenay ayaa waxa uu ku sheegay in telefishinka waayeen dambe ay wadeen warar mataqaanaa aan soconaynin wali wararkaasi ayaa waxa uu sheegay markii runta laga hadlo dhahay markii dawladdu ay ka soo baxday goobo muhiim ah waliba alamaata iyo markay ka soo baxeen ayaa waxaana la weydiiyay sababta ay uga soo baxeen kan weydiin waxay dhaheen waa dib u gurasho iyo xeelad dagaal ba mataqaanaa lagu jiribay dhaheen kadib haddana markii TPLF soo xogeysatay oo magaalooyinka mataqaanaa Qubba iyo Buuraha Zobel iyo tuulooyinka u dhow markii ay qabsadeen iyo haddana waxay dhaheen waa istiraatiijiyad dagaal marka waxaa kaloo uu sheegay in dagaalka maanta uu u dhow yahay in mataqaanaa Goobe in la qabsado oo uu u jiro maanta ay TPLF soo jiraan 25 kilomitir waa qiyaas aad u yar wey marka waxa uu sheegay in dagaalka lagula jiro TPLF dhanka dawladda in ay tahay wax iska khiyaali ah oo aysan runta aysan ka sheegeen balse TPLF ay mataqaanaa ay xoog ay leedahay ayna mataqaanaa laga yaabo ama laga cabsi qabo in dhul badan oo ka tirsan dhulka Axmaarada in mataqaanaa ay gacanta ay ku dhigaan dhanka kale Eritrea ida lafteeda mataqaanaa waxa lagu khasbay ama la doonayaa in dagaalku ay qayb ay ka noqoto si iyada lafteeda mataqaanaa furinta iyada intii la furo TPLF ay mataqaanaa aysan u helin maciin ah in dagaalka markii dhowr meel lagaga furo aysan meel ay ku gabato iyo baalkii aysan u helin ayaa mataqaanaa yaa la doonayaa iyada lafteeda mataqaanaa waa uu socda dagaalka Ethiopia hadda mataqaanaa socdo TPLF iyo dhanka kale dawladda militariga dawladda ayaa mataqaanaa waxa uu yeelanayaa wajiye kala duwan mataqaanaa yeelanaya maalin marxalad yaa mataqaanaa yaa la maraya hadda marxaladda la marayo ayaa waxa ay tahay in siyaasad la isku adeegsanayo taasi oo ah in maamuladii iyo mataqaanaa dawlad deegaanadii ka jiray dalka gudihiisa in mataqaanaa ay doonayaan iyaga laftooda inay la kala saftaan muxuuha labada qayb oo siyaasad hoose in ay adeegsadaan iyo mataqaanaa ay doonayaan taasina ay ku xoojin karaan iskaashigooda ah in qof kastaba isaga uu ku guuleysto dagaalka uuna noqdona qofka ugu horeeya ee mataqaanaa Ethiopia maamuli doono Abiy Ahmed isaga laftiisa arinta iyada wali waa wada dagaalkana waliba rafasha ayuu mataqaanaa ku jira military badan oo wali aan dagaalka aan soo gelin waa ay jiraan laakiin waynu arki doonaa meesha ay ku dambeeyso xaaladooda iyo insha Allah wixii ka soo kordho balse anaga wixii noogu darna waxa weeye waa xaaladda ka taagan gobolka City rajaynayna insha Allah in si qurux badan ay ku soo gabagabowdo Soomaaliduna waxay leenahay raggaas City hal garab istaago hana la caawiyo waayo waa dad walaalahan waa dad mataqaanaa deegaanka iska leh Soomaalida dawladdeegaanka qayb ka ah weey waliba xilalka ugu waaweyn dadka haya City waa in arrintan ay ka dhabayaan ayna mataqaanaa new police wixii la mid ah loo direeyo gobolada kale waa in ragga iyaga iyo maatidan la laynayo waa in lagu difaaca dawadayaal waxaan intaasi aan kusoo gabaynaa programkan aan ku dulmeerinay xaaladihii u dambeeyay ee gobolka City inta barnaamijkan kan xil kulmayno nabadino